kooxda Wayaha cusub ayaa ceeb weyn ka raacday hees ay soo galiyeen bartooda YouTube-ka inkastoo hadda aysan jirin koox la yiraahdo Wayaha cusub oo dhisan maadaama ay hadda qoys kaliya iskugu soo biyashabatay qoyskaasi oo ah qoyska Shiine akhyaar iyo xaaskiisa daba digriya iyo dalmar oo ahaa laf dhabartii kooxdan lana soo shaqeeyay digii asaaskoodana lahaa Wayaha cusub ayaa eedeeyay fool xumada uu wado ninkan saaxiibkood ah ee Shiine akhyaar oo dana shakhsi ah u adeegsanaya magacii kooxda isku duuban waxay bartooda Facebook ku soo qoreen qoraal sidan u dhigan labada fanaanba waxba kama ogin fool xumada socota waxaanu ka tacsiyadeynaa magacii Wayaha cusub ee aanu u soo halganay in loo adeegsado fikrad siyaasadeed ama dana shakhsi oo gaar ah oo haykalkii kooxda aad loo bahdilo dhiiqana lugaha loo geliyo fanku waa hanuuniya ee hagardaamo maaha ayay labada fanaan si wada jir ah bartooda Facebook ugu soo qoreen ceebta dul hoganaysa Wayaha cusub ama qoyskan ayaa quwadda dadka Soomaaliyeed oo muddo badan dhibaataysnaa misna ka daalay mucaaradadan caybka ku salaysan ayaa heestan la boobay dislike oo macnaheedu tahay maanu jeclaysan heestan ayaa markii ay 2 saac taalay bartooda YouTube-ka gaadhay 20k oo daawasho ama 20,000 oo daawasho iyadoo 20,000 oo kalena ay siiyeen dislike ama maanu jeclaysan iyadoo isleekaadeen caybka iyo daawashada viewska heestan 4 saac ama 5 saac markii ay ku jirtay barta YouTube-ka waxba iskama ay bedelin daawashada heestan oo kaliya waxa ku biiray 2,000 oo qof 22k ay tagtay views balse dislike waxa ay mareysay 50,000 oo qof waxayna noqotay fiidiyoogii koowaad ee Soomaali ay leedahay oo dislike ay ka badata like-ta iyagoo fiidiyo badan ay ku jiraan YouTube balse ayna ka dhicin in ay like-teedu ka kormarto dislike-tu balse heestan ayaa noqotay heestii koowaad ee skoorkaasi jabisay ama aftaxday Shiine akhyaar oo hogaaminaya familka heestan soo saaray ayaa jawaab weyn kala kulmay dadka Soomaaliyeed isagoo oo markii dambe qariyayba ama uu only me ka dhigay like-tii iyo dislike-tii la siiyay fiidiyoogan isagoo shacabka Soomaaliyeed uu kaga gabaday halkaasi Shiine akhyaar oo hogaaminaya familka heestan soo saaray ayaa jawaab weyn kala kulmay shacabka Soomaaliyeed isagoo ku ciyaaray magacii weynaa ee Wayaha cusub ay lahaayeen muddo dheer lana dhageysan jiray waqti uu fanka Soomaaliyeed uu hoos u dhacay 2005 ilaa 2009 oo ahayd xilli fanaaniinta Soomaaliyeed ee heestaaba ay yaraydba tani waxa ay u egtahay in mar dambe aan la dhacsanaan doonin waxa ay soo saaraan familkan fanaaniinta imika Wayaha cusub iskugu soo haray ama magacani wadata ayaa ah kaliya 3 qof Shiine akhyaar xaaskiisa iyo 6 oo ah fanaan la shaqeysta familkan sidoo kalena waxaa niyad jabay dadkii ajnabiga ahaa ee dabcan heestan la duubay iyadoo muuqaalka laga dhaxarkay dad ajnabi ah oo muusiqa raacaya ama ku jira fiidiyooga haddaba waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo wax wanaagsan oo xaqiiq ah halkan kala soco Kooxda Media subscribe ku qabo channelkan wabillahi tawfiiq